qisada nebi sakariya calayhi salaam waxa ay ku saabsiisan tahay naxariis uu ilaahay u naxariistay nebi sakariye, naxariistaas oo ah inuu ilaahay ka aqbalay ducadiisii. nebi sakariye ilaahay ayuu u cawday oo wuxuu yidhi, ilaahayow lafahaygii waa jilceen oo waa dabceen, madaxiina waa iga ciroobay, mana ahayn sida aan kaaga bartay, baryada aan ku baryo rabbiyow mid ku guul daraysto maanan ahayn, ayuu leeyahay nebi sakariya calayhi salaam. qaala rabbi innii wahana alcadmu minnii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. nebi sakariye wuxuu yidhi, haddaan cabashadeeda soo gudbiyo waxaan ka cabsaday dadkii xigtadeeda ahaa ee iga dambaynayey oo idhexlaayey, ayaan ka cabsaday inay diintii xambaari waayaan, xaaskayguna waa madhalays mid aan waxbaba dhalinba, ee ilaahayow xaggaaga waxaad iiga hibaysaa walad wanaagsan, anigu uu idhexlayaa, reer yacquubna diintuu ka dhexlayaa, waxaadna ka dhigtaa mid aad raalli ka tahay, ayuu leeyahay nebi sakariye calayhi salaam. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. fawaa'idka aan ka qaadan karna maxay yihiin marka? fawaa'id badan ayay culimmada sheegaan. fawaa'idka waxaa ka mid ah inuu alle ducada aqbalo oo ilaahay asaaba qur-aanka nagu yidhi, udcuunii astajib lakum, ibarya aan idin ajiibe. nebi sakariyana wuxuuna leeyahay calayhi salaam, ilaahayow sida aan kaaga bartay baryada aan ku baryo ma ahayn mid ku guul daraysto. marka halkaas waxaan ka qaadanaynaa inuu ilaahay ducada aqbalo oo keliya lagaaga baahan yahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido oo aad waxaad doonto weydiisato. waxaan kaloon ka qaadanaynaa markaad ilaahay ubad ka baryayso inaad weydiisato ubad wanaagsan oo khayr qaba, ilaan ubadku hadday imtixaan kugu noqdaan waa mushkilad kale. wuxuu yidhi, nimankii xigtada ii ahaa waan ka walaacsanahay, kuma qanacsani in sidii aan wax u waday ay wax u wadayaan. marka halkaas waxaad ka qaadanaysaa in ambiyada ilaahay ay ku fakarto mar walbo sidii ay ammaanada ilaahay u hirgeli lahayd. waxyaabaha aan ka qaadanayno waxaa ka mid ah aadaabta ducada, in dadka hurdo habeenkii intaad soo kacdo aad ilaahay si gooni ah wax u weydiisato. waxaa ka mid ah inaad baahidaada ilaahay usoo bandhigato oo aadan dhihin ilaahay wuu ogyahay xaaladda aan ku suganahay ee asaga muu isgarto ha dhihin, ilaahay wuu ogyahay wuu la socdaa xaaladaada, laakiin adiga usoo bandhig. waxyaabaha aan ka faa'iideyno waxaa ka mid ah marka aad ilaahay wax ka baryayso inaad ilaahay ammaanto. nebi sakariya calayhi salaam wuxuu sheegay ducooyinkii laga aqbalay. sidoo kale waxaad ogaataa ubadka inuu ilaahay bixiyo, meel kasta oo aad tagto inaadan ubad heli karin inuu ilaahay ku siiyo maahane. nebi sakariye wuxuu helay jawaabtii ilaahay. ilaahay wuxuu yidhi, sakariyo waxaan kuugu bishaaraynaynaa wiil magaciisa la yidhaahdo yaxye, magacaasna hadda ka hor qof lagu magacaabay ma jiro. nebi sakariye wuu yaabay, wuxuu yidhi, rabbiyow sideen wiil u heli karaa? xaaskaygu waa madhalays, xagga da'deeduna waxaa marayaa jilba qabsi. ilaahay wuxuu yidhi, arrinku waa sidaasee la qabso. malaa'igta ayaa u jawaabaysa oo dhahayso, ilaahaaga wuxuu yidhi aniga inaan ku siiyo wuu ii sahlan yahay, adiga laftigaaga ayaan ku abuuray hadda ka hor adoo aan waxbaba ahayn, adoon jirin ayaanba ku keenay. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا